السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada qiimaha badan aad idin salaamay meel walba caalamka joogtaan. Muuqaalkan waxa uga hadli doonaa insha Allah shir sanadeedka caafimaadka ay qabteen hay'adda SOSDU iyo isbitaalka Digfer isla markaasna ay maalgelinayeen kambaniyo kala duwan oo ay Soomaalida leeyihiin. Shirkaas marka magaciisa wuxuu ahaa First Multidisciplinary Health Congress oo la qabtay markaas bishii 12aad ee sanadkii 2023 ee hadda soo dhaafnay. Shirkaas marka waxaa looga hadlayay oo diiradda lagu saarayay kansarka. waxaana ka soo qayb galeen loona soo bandhigay cilmi baarisyo aad iyo aad u kala duwan runtii oo ay soo jeediyeen dhaqaatiir aad u kala duwan. Shirkaas marka gabagabadiisa waxaa ka soo baxday oo cilmi baarisyadii kala duwanaa lagu soo qulaaseeyay dalka Soomaaliya shanta kansar ee ugu badan inay kala yihiin kow kansarka ku dhaco hunguri mareenka ee loo yaqaano esophageal carcinoma ama esophageal cancer. kansarka ku dhaco hunguri mareenka labo uu ahaa kansar ku dhaco beerka liver cancer ama hepatocellular carcinoma. kan saddexaad wuxuu ahaa kansar ku dhaco naaska ama breast cancer. kan afraadna wuxuu ahaa kansarka ku dhaco minka dumarka qaybtiisa hore ee loo yaqaano cervixka ama cervical cancer. kansarka shanaadna uu yahay prostate cancer ama qanjirka ragga ee prostate loo yaqaano kansar ku dhaco. haddaba marka anagoonan ku dheeraanayn waxaa rabaa inaan bulshada ka wacyigeliyo oo aan u sheego shantaas kansar oo bulshadeena inay ugu badan yihiin lagu soo saaray cilmi baarisyadas oo kala duwan oo laga sameeyay Soomaaliya badankeed yani dhulka Soomaalida ay degaan badankiis. haddaba marka shantaas kansar waxaan si guud u taataabanayaa mid walbo calaamadaha lagu yara arki karo iyo bulshada da'da badana oo kaga dhici karo. hadda ugu horeyn kansarka ku dhaco hunguriga oo kale. kansarka hunguriga ku dhaco bulshadeena aad ugu badan yahay qaas ahaan dadka ka yimaado baadiyaha oo aadka u isticmaalo waxyaabaha kulul shaaxa kulul baastada kulul wax walbo kulul oo la geliyo hunguriga dhibaato weyn ay ku keentaa. way gubanaysaa meesha way gubanaysaa mar labaad mar saddexaad dhowr mar ay gubato dabcan meel walbo nabar ka sameysmo waxaa ku dhacaya haaraa ku dhacayso haaraa ka sameysmaya derbiga waxaa isbedel ku dhacayo dahaarka hunguri mareenka kadibna halkaas kansar ka sameysmaayo. badanaa da'da lagu arki karana waxaa ka mid ah da'da sodomiyada iyo wax kor kaga sii badan. waxaa laga yaabaa qofka muddadii uu yaraa oo dhan inuu caadadan soo sameynayay wax kulul ku ridaya halkaas ay gubanaysay dhibaatooyinkan ay soo jireen kadibna isbedel uu ku yimaado unugyada dahaaraya hunguri mareenka halkaasna ay dhibaatadii ay soo baxdo ama ay calaamadaheeda la arko qofka markuu sodomiyada soo gaaro rag iyo dumar intaba. waxyaabaha markaas qofka uu isku arki karo waxaa ka mid ah candhuuf fara badan ama dhareer fara badan oo aad u soo laalaabanayo qofki inuu baaba'o calaamadaha ugu horeeya laga arki karay kamid tahay qofki inuu baaba'o hungurigana uu liqi waayo. qaas ahaan waxyaabaha adag ay ka bilaabataa hilibka iyo cuntooyinka adag rootigo kale inuu liqi waayo kadibna cuntooyinka jilicsanaa mashaarida loo yimaado kadibna ay gaarto ugu dambeyn inuu hunguriga dhan xirmo oo qofka wax dhan uu liqi waayo. taasna ay ku keento nafaqo daro jirkiisa inuu baaba'o miisaankiisa inuu dhaco yani calaamadaha kansarkan ay toos uga soo baxaan wayna adag tahay. ma ku soo dheeraanayno qodobka labaad waxa waaye kansarka beerka waxa ugu horeeya ugu badan oo bulshadeena uu kula dhaco waxa waaye noocyada kala duwan ee cagaarshowga nooca B loo yaqaano ama hepatitis B iyo nooca C loo yaqaano ama hepatitis C. labadaas nooc oo bulshada wacyigooda uu runtii aad u hooseeyo layska baarin xilliga guurka xilliga dhiig isku shubidda xilliga la isticmaalayo meelaha caadi dhaqameedka loo aado dhammaan meelaha laga qaaday kamid tahay. adiga almuhiim waxa waaye qofka meelaha uu ka qaadi karo waaye waxa ugu weyn waxa waaye muddo soo jira beerka caabuqa ku dhacayo caabuqa markuu ku dhaco isbedela ku sameysmaayo waxa la yiraahdo liver cirrhosis ugu dambeyn hepatocellular carcinoma isku bedelaya. ummadeena Soomaaliyeed qaas ahaan dadka ku nool dhulalka beeraha laga tacbado dadka ku nool iyagana waxa ku keento waxa la yiraahdo maado ka sameysanto cuntada markii ay duugaan. dadka waxay sameeyaan xilliga aaranka cuntada dalaga markuu u soo baxo qaas ahaan masagada iyo galeeydo kale dhulkay ku aasaan kadibna markay dhulka ku aasaan xilliga la gaaro abaarta ay dib ula soo baxaan si caruurtooda iyo eheladooda markaas iyaga nafsadooda ugu quudiyaan. marka waxa dhacayso muddadaas dheer ee cuntada kaydsan tahay toxin ama sun ayaa ka sameysmayso. suntaasna waxa loo yaqaan aflatoxin waxayna halis ku tahay markaas ay dhaawac u geysataa beerka ugu dambeyn waxay isku bedelaysaa kansar. taas marka nooc walba ay ahaato da'da dhalinyartana waa lagu arkaa dadka waaweynna waa lagu arkaa balse xilliga qofka uu weynaado ayay soo baxaysaa kansarka ama dhaawac la arkaya. kan saddexaad marka waxaan dhahnay waa kansarka ku dhaco naaska. kansarka naaska ku dhaco walaalayaal ogsoonaada badanaa horta wuxuu ka bilaado aad ugu badan yahay da'da 33 iyo wixii ka weyn laakiin ma lagu arkaa gabdhaha yararka waa lagu arkaa 20 jiro ayaa lagu arkay qaybo fara badan oo kala duwan oo caalamka kamid ah iyo dad da'dooda ay ka sii yartahay. qaarna wuxuu ugu yimaadaa dhaxal ahaan waalidiintooda ay ka dhaxlaan. marka wax ugu horeeyo gabadha ay isku arki karto maxaa waaye waxay isku arki karto waxa waaye naaska inay ku aragto wax soo kuusan oo ka baxsan nudaha ama xubinta naaska sida caadiga ah cadiin ay ka samaysan tahay oo unugyo markin oo cadiin ah iyo qanjiro lobulis la yiraahdo ayuu ka samaysan yahay. gabadha waxaa la rabaa xilliga musqusha ay ku jirto inay naaskeeda ay marba markin oo dhinac ka taabato gacanteeda inay kor u qaado kale madaxa saarto ay ka soo bilaawdo halkaas sida saacad ay wareegsanayso maana sida ka duwan dabcan saacad saan u wareegsanayso sidaas ay u soo bilaabaysaa calaa casha marka laga reebo afarta farood adigoo isticmaalaysid faraha ma ahan
ibtooda hore ma ahan ee faraha dhan adigoo isticmaalaysid kasoo bilaabo naaska asaaskiisa hoose ilaa kor gabadha inay taabataa la rabaa kadibna ay aado dhanka kilkisha waxyaabaha ugu horeeya gabadha isku arki karto waxa waaye kuus ka baxsan kuuskii dabiiciga ahaa oo naaska lahaa ama xubintii unugyada dabiiciga wax ka baxsan oo kuusan oo yar adag ay isku arkaysaa haddii kale gabadha waxay isku arki kartaa kuus oo ka imaanaya dhanka kilkisha dhankeeda sidaas midig ama bixdix labada dhinacba marka waxa la rabaa gabadha xilliga musqusha ay ku jirto especially inay isfiiriso naaskeeda ay taabato haddii kaligeed ay qol degan tahay xilliyada qaar muraayada horteeda inay istaagto labada naas misla eg yihiin calaamadaha ugu horeeya lagu arko waxa kamid ah labada naas inay aad u kala weynaadaan yana hadalkan kuga cabsi gelinin labada naas caadiyan way kala weyn yihiin waa xaalad dabiici ah macna gabdhaha idilkood labada naas islama eko mida wax yar hoos u dheer mida kor yani oo jiro mida ka weyn kan kale taas waa caadi laakiin waxa la rabaa weynin oo xaddiga caadiga ah ka baxsan ma ku sii dheeraanayno insha Allah موضوعيdan midkii aad danaynaysaan qaybta commentiga ugu soo qora waa kasii hadli doona kan saddexaad marka waa sheegnay waxa waaye naaska kansar ku dhaco kan afraad marka maxaa waaye kan afraad wuxuu noqonayaa kansarka lagu arko cervixka ama duleelka hore makaanka ama ilmo galeenka gabadha markii mahbalka gabadha la gudbo afka hore makaanka uu ka bilaabanayo halkaas ayaa loo yaqaanaa cervix sawirka hadda halkaan idin soo dhigna waa ka arkaysaan cervixkaas ayaa waxa isbedel ku imaanayo unugyadii caadiga ahaa ee cervixka ayaa isbedel ku imaanayo nooca ugu badan waxa la yiraahdaa squamous cell carcinoma ayaa halkaas ku dhacdo calaamadaha ugu horeeya marka gabadha isku arki karto waxa kamid ah dhiigbaxaas oo aanan xilliga caadada ahayn dhiig aanan gabadhi ka dhamaanaynin waxaa laga yaabaa hadduu heerarka kala duwan ama heerarka dambe uu gaarana markaas waxa laga yaabaa gabadhi in lagu arko baaba jirkeeda inuu baaba'ayo ay sii caatoobayso iyo wax la mid ah marka mar walba waxaa muhiim ah gabadha hadday isku aragto dhiigbax aanan caadi ahayn si degdeg ah in dhakhtarka ula xiriirto dabcan da'aadka uu ka bilowdana waxa waaye 35 jirada iyo wixii ka sii badan da'aadkaas ayuu ka bilowdaa marka waxaa la recommend gareeyaa gabar walba markay soo gaarto da'da 25 sanadood sida fiican waxa waaye sanadkiiba mar inay dhakhtarka u tagto waxaa la sameeyaa marka waxa la yiraahdaa pap smear halkaas in laga yar qaado dheecaan kadibna baaris lagu sameeyo unugyada wax isbedel ma ku dhacay wax la mid ah ma ku sii dheeraanayno kan shanaad marka maxaa waaye kan shanaad waxa waaye kansarka ku dhaco prostatada qanjirka la yiraahdo prostate gland dumarka laguma arko yani nooc waxa arkaysaa marka waxa laga yaabaa inaa aragtid the prostate gland of the female waxa la yiraahdo prostate gland of the female ma jiro laakiin qanjir gabdhaha waxay qabaan u dhigmo qanjirka prostate glandka ragga oo kale macluumadan waxa laga yaabaa xitaa dadka dhaqaatiirta ay muuqaalkan daawanaya qaar badan oo kamid ah inaysan ku baraarugsanayn waxa jiro the prostate gland of the female qanjirkaas waxa loo yaqaanaa the gland of skin ayaa la yiraahdaa waa qanjiro yar ah oo ku yaalo duleelka kaadida ay ka soo baxdo gabadha dhinacyadeeda yani ama periurethral glands ayaa loo yaqaanaa waa qanjiro yar ah waxayna soo deeyaan dheecaan la yiraahdo PSA oo sida qanjirka ragga oo kale laakiin waa xaddi aad iyo aad u hooseeya marka balse midka aan ka hadlayna anaga ma ahan kii dumarka prostate gland cancer ma ku dhaco laakiin ragga ayaa uu ku dhacaa the prostate cancer waxa la yiraahdo prostate cancer caadiyan wuxuu ku yimaadaa da'da markay ay soo gaarto ama la arkaa calaamadihiisa da'da 60 sano yani kontonka wixii ka weyn 60meeyada sida badan prostate gland cancerka ku dhacona ama the prostate cancer waxa la yiraahdo aad iyo aad ay u adag tahay in la ogaado maxaa yeelay qofka wax calaamad ah isku arkayo waxa waaye markii oo qofka waalidka ah badana awoowayaasha ayaa lagu arki karaa ama waalidiinta aabayaasha da'ahaadka markay soo gaaraan kontomeeyada sida fiican waxa waaye inay sameeyaan prostate screening la yiraahdo laakiin qofku wuxuu isku arki karaa calaamadaha ugu horeeya oo laga yaabo inuu dareemo waxa kamid ah dhabar xanuun mar haddii qofka dhabar xanuun aad u far badan oo isku arkana macnaheedu waxay ka dhigan tahay kansarkaas wuu faafay marka ma ku soo dheeraanayno calaamadaha ugu waaweyn ee badanaa qofka isku arki karo waxa kamid ah maadaama qanjirka prostate ku dhacay qofka kaadida inay dhibto kaadi fara badan habeenkii inuu musqusha u galaayo kaadida in markiino ay ku yara dhageyso ama ay ku adkaato sii deynteeda inuu isriixayo si kaadi u soo saaro xilliyada qaar dhiig in lagu arko kaadidii iyo wax la mid ah marka ma ku soo dheeraanayno muhiimadda marka maxaa waaye maadaama shirkaas caafimaadka dhaqaatiirtaas juhdiga fara badan ay geliyeen ay ku soo saareen isla markaas nugula wadaageen shanta kansar ee ugu badan Soomaaliya inay kala yihiin kansarka ku dhaco hunguriga 1 kansarka ku dhaco beerka 2 kansarka ku dhaco naasaha 3 kansarka ku dhaco ilmo galeenka afkiisa 4 iyo kansarka ku dhaco qanjirka prostatada loo yaqaano waxa u baahannahay wacyiga bulshada inaan soo jeedino walaalayaal waxa u baahan tahay calaamadahaas oo sida briefka aan kugu sheegay mid kamid ah hadii aad isku aragtid hadii gabar aad tahay ama hadii aad wiil tahayba waalid Soomaaliyeed aabba ama hooyo hadii aad tahay in aadan yareysanin calaamadahaas aan ku soo sheego oo aan taabtay oo kaliya yani si faahfaahsan uga hadlin waa taabtay koran ka dul maray midkood hadii aad isku aragtid sida ugu dhaqsiyaha badan dhakhtar ula xiriir hayareysanin waxa u baahan tahay in lagu sameeyo wax la yiraahdo screeningka wuxuu ka dhigan yahay waxaan in la ogaado xilli hore hunguri mareenka xilli hore la ogaan karaa mar walba oo xilli hore la ogaadana daawada sahlanayso shantaas kansar aan ku sheegay ma ka dhigno macnaheeda Soomaalida in ay la dhiban yihiin ama ay ku dhacaan oo kaliya ama lagu arkay shantaas kansar oo kaliya ma ahan sida caalamka kale ay ugu jiraan noocyada kala duwan ee kansarada kasoo bilaabo madaxa ilaa fariireyda jirka qayb walba oo kamid ah kansar ku dhaco xubinta ugu kansarka yar waxa waaye wadnaha
wadnaha balse wadnaha nafsadiisa kansar noocaha ku dhaco haddaba marka waxa u baahannahay bulshada inay fahmaan kansarka waa wax jiro wax la iska indhatiri kara maaha kansarka ma daaweyn karaan dadka ay u furan yihiin meelaha isku daaweynta cilaajka meelaha isku daaweynta dhirta dabiiciga waxaas ma daaweyn karaan kansar wuxuu u baahan yahay dhakhtar khibrad iyo aqoon leh inuu xilli hore ogaado isla markaasna dhakhtarka ku habboon uu kuu diro haddii asaga uu yahay uu kaa daaweeyo laba noocaana ma arkin oo dhakhaatiirta kansarka ay u kala baxaan dhakhtarka daawada kansarka iyo dhakhtarka qaliinka kansarka marka walaalayaal Soomaaliya kansar ayaa ka jiro hadba intuu la egyahay cilmi baarisada la sameeyay haddii aad codsataan insha Allah waa raadin doonaa waana idin la wadaagi doonaa muuqaalkan marka shantaas kansar ayaan ka soo hadlay midkii aad u aragtid inaan muuqaal faahfaahsan ka sameeyno qaybta hoose ee commentiga videogan igu soo qor insha Allah muuqaal faahfaahsan oo aan wacyiga iyo aqoonta bulshada aan ku baahinayo ayaa ka soo sameyn doona hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah waxaan rajaynayaa muuqaalka inuu wax kugu soo kordhiyay isla markaasna waxaan si qaas ah kaaga codsanayaa bulshada in aad si dheer ah u gaarsiisid oo muuqaalka aad la wadaagtid siina share gareysid inta awoodi kartid talada ugu qiimaha badan caafimaadka waxa waaye ka hortagga ayaa ka wanaagsan daweynta alwiqaayatu خير من العلاج كهرتجا او ku bixisid wax yar oo qarashaad isbitaal ku tagtid oo screening ama ogaanshaha xilliga hore ee lagu sameeyo ayaa waxay ka badbaadin kartaa xanuunkan markii uu gaaro heer dambe qarash aad iyo aad u fara badan oo kugu bixi lahaa kansarkana ogsoonaada daaweyntiisa waa very expensive xitaa way adag tahay qofka shakhsiga ah inuu kaligiis iska bixiyo qarashaadka ku baxaya si looga daaweeyo kansar waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan waxayna inoo ahaan doontaa insha Allah muuqaalkan muuqaalka xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh